dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eedda saaraan. dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Ethiopia ayna jebisay, waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan gaalada inoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriiska mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinayaan. waxay jecel yihiin inay dowladaha jaarka China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwan baa ayna baabiiyey. waxba kama jiraan runaa isu sheego. innaga isjabinnay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay. waana sida caadiga bini aadamku u fakaro. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay? soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay? waa doqonnimo. Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto, laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxad iigu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wado haddaan maslaxad iigu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo Maraykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan haddaan dan iigu jirin. nabi maxamed iyo saxaabadii markay jabeen lama odhan Khaalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idinkaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idinla dhigay lama odhanin. markay jabeen markay iyagu taktiigii nabiga khilaafeen ayuu Khaalidna godoloolada arkay dabeetana uu ka faa'iidaystay. Khaalid oo gaal ah ayaa wuxuu arkay godoloolada dabeetana meeshii dalooshu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay. dabeetana saxaabadii waaweyneeda la yaqaanay nabiga adeerkii waa markii la dilay Xamse iyo raggii la mid ah dhulka loogu tuuray. markay muslimiintu yidhaahdeen anna haadana ilaahay baa u jawaabo wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum. qul huwa min cindi anfusikum. Malik ibnu Nabi nin la odhan jiray caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu odhan jiray isticmaarku maaha mashkiladdiye waa qaabiliyatul isticmaar buu leeyahy. ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buu leeyahy. gumaysigu weligii buu iska jiray. cid rabtay inay cid gumaysataa waa iska joogtaye dee nin la gumaysan karun baa la gumaystaa. soomaaliduna maxay yidhaahdaan miskiin baa miska la fuulo leh. markaad miskiinka noqoto ayaa dee dadku ku kooraysanaya. markaa Soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa, dhab weeyaan taas. laakiin dhibta ma Ethiopia ku haysa mise Kenya ku haysa mise Maraykan baa ku haya mise Caynkan baa ku haya? waa dhibta innagaa isku hayna, innagaa isjabinnay, innagaana weli isdilayna, innagaana rabna weli inaynu kala guurro, innagaan tuulana tuulada ku xigta heshiis la ahayn. tuulana tuulada ku xigta heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa. marka haddaynu innagu caqli keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa. waddankeenniina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa. haddaynu caqli keeni weynana dee waa layna gumaysanayaa. adeer ninkaan tashanaynin dee waa loo taliyaa. carruurta yaryar ma tashan karto markaa waa loo taliyaa. reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badh baa wisaaya u baahan, isma maamuli karaana in la maamulo u baahan. marka ergeyga jamciyadda qurumo ka dhaxaysaa laynoo soo dirayaa siduu inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay waxa saxayiin iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino dhaano askartiina wax ma helin qoladaasina wax ma helin oo la yidhaahdo fankaa laydinku darayaa projectka sanadka dambe EU-da idinku daraysa ama USAID baa laydinku daraya. dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. dawarsi masaakiintaa ku dhergi lahayd haddii cidi ku dhergayso. miskiinkan yaa la waxsiiyey dun hayaa imisun buu lahaa yaa la waxsiiyey. marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay, dhibina way haysataa. laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulaye. dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo in adeerka iyo ka sii dambeeyaan isdoonaynin. haddaynu innagu caqligu lagu wada noolaado keenno. gaaladu waxay yidhaahdaan 3 dariiq baa jira oo bini aadamku uu u kala baxo. bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yidhaahdo nabad waa lagu kala baxaa. bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yidhaahdaan. intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaha war bal annaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka taga annaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadna hore u soconnana wuu kari karaa. bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa. waar heshiin weynaye ha laynoo gar qaado. ilaahay kitaabkiisaa cid inoogu saar inoogu gar qaada
marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garanno kala baxno haddaynu soomaalina saddexda midna ma ogolin inaynu sacafino iska wada noolaano ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garanno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabada yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalinba ka laga yaro dabaabada roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waan halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 60 sano ama 30 sano la sheegay saw baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaalayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliyo waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliyo aqbala wallahu a'lam